riyooyin waaweyn iyagoo leh ayuu u bilowday fasalkan boqoradda aanan quusta qaadan ee Chelsea, balse riyooyinkii xogweynayaasha waxay u kala daadatay sidii baraf cadceed helay kadib dhirbaaxintii Ruushka uu dhulka la dhigay Ukraine. sida oo ay tahayna wali waa kuwa awooda in ay ka qosolsiiyaan mucaashaqiintooda, waxaana ay ku qaateen maslaxa riyada habeen la isweydiiyeyba in lagu ciyaarayo Old Trafford ama Stamford Bridge. habka ay ku bilaabatay ciyaartan ayaana ahayd Chelsea oo weerar ah iyo Manchester oo difaac ah. tabar la'aanta United ee kulankan waxay muuqatay bilowgii qaybtii hore, waxaana 11koodii xidig laga qaadan karay kaliya De Gea oo ahaaba darbi ay dhaafi waayeen ciyaartoyda Chelsea iyo Ronaldo uu sameynayay taaq yar. balse isku soo laabashada qaybtii labaad darbigii adkaa uu dhistay goolhaye David De Gea waxaa dumiyay Marcos Alonso, waxaana ka yimid gool fadhiga looga kacay. laakiin goolkii Alonso waxaa si degdeg ah gool kale ugu badalay macallimka weyn ee Ronaldo. kooxda ayaana la dhihi karaa waa mid uu haysto isdhexyaac guud mooyaane Ronaldo wali waa Ronaldo. waayo 9kii gool ee ugu dambeeyay oo ay dhalisay Manchester 8 ka mida waxaa dhaliyay libaaxyada, halka goolka kalena uu ka yimid Fred. maninka ayaa ah mid loo dayma xumayn karo. sidoo kale Ronaldo haatan wuxuu gool ka dhaliyay koox kasta oo Premier League ah uu la ciyaaray 4 kulan ama wax ka badan. Chelsea waxay ahayd dhinacii uu sugayay. taariikh weyn ayuuna ka tillaabsaday habeenkan. ciyaarta sida weyn looga sugayay koona kasta oo ka mida koonkan ayaana ku soo dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah. ciyaaryaanka sida weyn loo amaanayna kulankan wuxuu ahaa N'Golo Kante oo noqonayay cagmadhige ka yaabsadayba ciyaartoydii qadka dhexe ee Manchester. waliba mid kasta oo ka mida 4 kulan ee ugu dambeeyay Premier League oo ay wada ciyaareen Chelsea iyo Manchester United dhammaan waxay ku soo dhamaadeen barbardhac. waxaana la rajaynayaa in barbardhac 2-2 ah ay ku soo idlaan doonto fasalka soo socda. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixintan ilaa iyo dhammaadkeeda. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.